بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta oo taariikhdu ay tahay 31 bishii December waxaan shirkan jaraa'id u qabanay in aan bulshooyinka reer Jubbaland iyo kuwa Soomaaliyeed u sheegna haddii aan ahay dhalinyarada reer Jubbaland in aan qaban qaabinayna shirweyne dhalinyaro aan isku keenayna dhammaan gobolada Jubbaland ka kooban tahay degmooyinkiisa kaas oo dhici doona saddexda bisha January 2016 oo maalinta Axadda fooda nagu soo haysa kaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan saddexdii gobol ugu martiqaaday saddexdii gobol oo ka tirsanayay maamul goboleedka sida gobolka Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gaday intaba ajadiisana uu noqon doona kolay markii koowaad oo dhalinyarada jubbooyinka la isku keenay magaalada madaxda ku meel gaarka ee Kismaayo runtii ajendaha ugu weyn oo noqon doona isdhexgalka dhalinyarada iyo sidii loo heli lahaa siyaasadda dhalinta jubbooyinka ay ku midaysan yihiin afkaartooda iyo mid qodobka saddexaad oo ah 18 shir ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu shirweyne qaran oo dhalinta Soomaaliyeed loo bandhigay waxa lagu soo bandhigay siyaasad qaran oo dhalinta Soomaaliyeed ay lahayd kulay siyaasad lagu soo bandhigay draft ahead qabiye ahead in fikirkii aan helna fikirkii dhalinyarada gobolada jubbooyinka siyaasaddaasi ay ku dari lahaayeen iyaga laftooda waxaan insha Allah inaan fursadaas uga faa'iideysana inaan shirkaas aan ku soo bandhigna waxaan dhammaan bulshooyinka reer Jubbaland qaasatan kuwa ku nool degmada Kismaayo iyo gobolka Jubbada Hoose u sheegaynaa in uu shirkaasi ka dhici doono gobolka Jubbada Hoose degmada Kismaayo marti loo yahay wali waa dareemi kartaa markii dad aad marti gelinayso waxyaalo badan lagaga baahan yahay inaad ka qabato ama ka caawisa waxaan filayaa waxaan rajaynayaa in dhalintii degmada Kismaayo oo marti loo yahay ay kaalintooda buuxin doonaan gudoomiyahooda uu yahay fadhiya insha Allah asaga oo bixin dheeraad ku dari doona وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.